السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan galab wanaagsan waa barnaamijkeeni galabnimo waa barnaamijkii labaad maanta oo Arbacaan idin soo gudbinayno taariikhduna ay tahay 15 Oktoobar sanadka 2025 barnaamijka galabta waxaan idinkugu hayaa Pakistan oo weerar ku qaaday caasimadda Afghanistan ee Kabul haysada u dhaxaysa Pakistan iyo Afghanistan oo cirka isku shareystay xilli laga shaqeynayo xabad joojin inay dhexmarto labada dhinac haddaba tafaasiil ku saabsan wararkii ugu dambeeyay ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa waxaa soo kale barnaamijkan idinku haynaa taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka oo u hanjabay Hamas maxaa lagu haystaa sababta aad u cayrsanaysaan maleeshiyooyinka dhibka ka wada Gaza oo aad u leynaysaan maxay tahay sir badan ayaa soo baxaysa yaa soo hubeeyay maleeshiyaadkaas maxay tahay ujeedada loo keenay Gaza haddaba tafaasiil la yaab leh oo sheekada ka soo baxday iyana barnaamijka ayaan idinku faahfaahin doonaa afartii lafihii loo dhiibay Israa'iil saakay waxay sheegeen mid kamida inaanu yahuud ahayn oo lagu soo qalday haddaba muxuu yahay midka la soo qalday maxay kaga jawaabeen Hamas tafaasiil ayaan iyana arrinka idinkaga soo gudbin doonaa qodobadaas barnaamijkeena galabnimo ayaad ku daawan doontaan inta aan ku jirnana warar cusub haday soo kordhaan waan idin la socodsiin doonaa kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena galabnimo waa galabnimo Arbaca barnaamijkuna waa kii labaad waxaynu ku bilaabaynaa sida aanu idinkugu soo tabinay oo aanu halkan idinkaga soo gudbinaynay warbaahintana ay ka hadlaysay maalmihii la soo dhaafay tan iyo markii xabad joojintu ay ka dhacday Gaza Hamas waxay soo saareen ciidan Al-Qassam Saraya al-Qudus muqaawamada ciidan wada jira ayay soo saareen ciidankaasu Gaza oo dhan meelihii Yahuudda ay ka baxeen ayay soo galeen kooxihii hubaysnaa ee la rumaysnaa Yahuudda inay ku daabnaayeen oo meesha dhibaatada ka waday ayay inta qabteen 18 ayay toogteen kuwa kalena hadda taxqiiq wax la yiraahdo baaritaana ku socda waa la soo qabtay qaar way carareen waxay ka gudbeen meesha Yahuudda joogto gadaashooda aadeen ciidanka Yahuudda wali kama dhamaan Gaza oo meelo kamida geesihii wali joogaan geesihii ayay gadaal ka mareen way carareen marka intii gudaha ku jirtana waa la raadinayaa waa la yaqaan reer Gaza dadka way is garanayaan dadkii dhibaatada geystay hubka ka soo qaatay Yahuudda ee la isticmaalay dhalinyaradii daroogada la soo siiyay wixii oo dhan saasa loo raadinayaa hawshu marka waxay u dhaxaysaa reer Gaza iyo Qassam iyo muqaawamadii ee hawshooda u dhaxaysaa waxay sheegtay Hamas inay ka nadiifinayso iyada iyo muqaawamada kale inay nadiifinayaan kooxaan ay ku tilmaameen cumala maxay yihiin waa daba dhilifiyo cadawga uu samaystay yiraahdeen kuwiya marka intii dagaalku socday ma soo bixi karin muqaawamada godadku kama soo bixi karin wax badan ma sameyn karin diyaaradaha dul taagnaa hadda maadaama sheekadii joogsatay nimankii marka waa raadinaya nagtaasa laga saaraya Soomaa nimankii dadkii hubeeyaa soo qeyliyay marka adduunkan aad u jeedaan marba waxba soo baxaya eebba banaanka imaanaysa awal waxa la islaa Yahuudda kaliya ayaa nimankan samaysay ileen macalinka weyn ama qayb ka ah dadkan la hubaynayo ee reer Gaza ah si ay Hamas iyo muqaawamada ula diriraan nimankii marka dadkii ay hubayeen markii nagta laga saaray way isqarin waayeen taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa baad soo hadlay maxaa la isugu tagay reer Gaza Mareykan Yahuud reer galbeed kuwa basaasa ilaahugaasa meesha ku haya dadkaas haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka wuxuu ka codsanayaa Hamas inay hubkooda dhiibaan oo ay joojiyaan dilka cumalada macnaha daba dhilifyada inay dilaan inay joojiyaan taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka waxa uu sheegay Hamas inay joojiso waxa lagu tilmaamay
dilalka iyo howlaha ay ka wado rasaasta ay ku ridayso sida la leeyahay dadka rayidka ee falastiiniyiinta ee reer Gaza. waxaan ugu baaqaynaa Hamas inay markaa hawsha joojiso oo deegaanada hadda ay joogaan ay joojiyaan oo markaa dhibaatada ay ka wadaan. u fiirsada waxa meesha ka dhaca arka adduunkan ay u jeedaan wax walba maalinay banaanka ceebtooda imaanaysa. nimankiiya waxay ku leeyihiin nimankan noo daaya annagaa iskale cumalaa waaye annagaa leh ma taaba kartiin faraha ka qaada dadkaas joojiya hubka iska dhiga adig waaya Xamaas hadday hubka dhigaan muqaawamadu kuwan cumalada ma hubka haysanay wax la yaab la meesha ka socda. marka sheekada meesha ka socota waa sheeko yaab leh. markii hadalkaas taliska dhexe ciidamada Mareykanka uu soo baxay waxa isaguna hadlay wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil isla meeshii uu maray waliba isagu wuxuu leeyahay annaga waxaan ka cabsanaynaa kulaha ciidankan Xamaas oo meel walba joogo dadka nagta ka saaraya inuu annaga nagu soo xadgudbo fulaynimadooda hadduu na soo aado wax walba ku jawaabaynaa ogaada u leeyahay. maxaa laga baqayaa nimankan Xamaas? haddaba aan idin tuso wasiirka gaashaandhigga wuxuu leeyahay ninka la yiraahdo Katz oo wasiirka gaashaandhigga wuxuu leeyahay waxaynu qaab kasta oo degdeg ah uga jawaabi doonaa xadgudub kasta oo nala ku sameeyo. wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Katz ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay ka jawaabi doonaan sida ugu dhaqsaha badan waliba xadgudub kasta oo markaa lagu soo sameeyo oo lagu soo xadgudbo annaguna toos ayaan uga jawaabi doonaa ayuu leeyahay. marka nimankan marka warkoodu waa cadaysteen niman warkoodu cad yahay waay marka ay leeyihiin hawshaasa socota. waaya wararka kale ee yaabka leh ee soo kordhay Gaza waxa kamid ah saakay waxay noo joogtay iyadoo Netanyahu iyo kooxdiisu ay ogolaadeen macbar Rafah in la furo 600 oo baabuur oo gargaarna ay galayaan intaas ogeyn. nimanku isgadgadis badan ka daba wareeg badan ma jiraan lagu leeyahay yahuudu caadi ma hadda waxa leeyahay macbar Rafah wali ma la furin baabuurti saasi u dhoobay waxay leeyihiin hay-adii adiku saakiso nama dhihin waa la furayaa maya wax yara noo dhiman. maxaa dhiman lafihii la keenay wax ka qaldameen lafa maxaa naga galay nintii afara la idin siiyay lafihii saakay oo talaada maartay shalay oo talaada ayna afar kala la idin siiyay oo xalay waqti dambe haye maya afartiina la siiyay midaan yahuud noqonin waa lagu soo qaldamay mid Falastiini ee loogu soo dareen annagu waxaarna sheekada way socotaa. nimankan waxay leeyihiin dhexdhexaadiyaasha u fiirsada nimankan dhexdhexaadiyaasha waxay leeyihiin dhageystay leeyihiin nimankan waa dad aan qalab fiican haysan koow aalada fiican oo lagu kala ogaanayo waxaan ma haystaan. wixii noolaa markay idin siiyeen wixii dhintayna waxay idin keenaan kala baxa lafihiina wixii kala celiya. hawsha way socotaa waxaan qarracda joojiye daba niman marmarsiya raba oo wareer raba oo waxaan xal iyagu xalka iyo mushkiladii wax dhan waa dhibaysaa. marka waxaa lagu leeyahay wali macbar Rafah dhibaato ka taagan laba furin baabuurtii qaar loo jiheeyay meelo kale inay maartay gargaarka geliyaan maanta hawshaas halkaas marka ka socota. marka xaalka guud ee Gaza marka waa kaas saakayna waxa leeyahay wararkii ugu dambeeyay taangi ayaa rasaas riday Israa'iil. shalay maxay ahayd diyaarad drone dad duqaysay u fiirsada maalin walba waxbay sameeyaan maantana taangi ayaa rasaas riday Khan Yunis ku dhacday halkaasoo dad ku dilay dadna ku dhaawacay. maxaa jira waa shakinay waxbaana lagu soo riday yaaba ka taagan meesha. qadar xayeysiisa kadib waxaan galaynaa Pakistan oo duqaysay caasimadda Afghanistan ee Kabul. Taliban oo iyaduna hanjabtay yaa kala dhiciya labada dawladood ee muslimiinta nagta iska saaraya
haddaba waa arkaynaa xaalku meeshuu marayo wararkii ugu dambeeyaan idiin haya si wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan galab wanaagsan barnaamijkeennii galabnimo ayaynu ku jirnaa waa tahay barnaamijka galabta waxaan galaynaa Pakistan oo duqaysay Afghanistan maalmahan oo dhan sheekadan way socotay xuduudkii ka socotay maartay waa la isweerarayay waa la isdhibaateynayay xuduudda waa la xiray waa la is haystaa marka nimankan Daalibaaniyiinta waxa lagu haystaa inay taageerayaan qolo kale oo gudaha Pakistan joogta oo dhibaatooyin Pakistan gudaheeda ka geysatay sida la leeyahay marka waxa qabaa'ilka waa qabaa'il dhanka Pakistan degan oo dhanka Afghanistan degan waa dad wada dhashay Pashto waa yiraahdaa dhankan Pakistan way jiraan dhankanna way jiraan waagii hore jabhadda ay Taliban ahaydna Taliban Pakistan iyo Taliban Afghanistan la kala dhigay Taliban Pakistan ku marka dhinaca Pakistan waa marka qolooyinkaas Taliban Pakistankii wali waa jabhad kuwan laakiin dawladda noqdeen oo wadankii qabsadeen kuwii marka jabhadda ahaa iyo Pakistan waxay ku hayaan dhibaato ku hayaan Pakistan markay soo cayrsato xaggan ay u soo dusayaan Afghanistan ay soo galayaan oo Taliban tii kala joogto marka sheekadii marka la isku wareeray halkaas xuduudkii marka dhibaatadaas ka dhacday dhanka kale ku eedeynaya inuu isagu dagaal ka sameeyay marka fowdadiisa u socotay maanta waxay ku timid caasimadii Afghanistan Kabul ayaa la duqeeyay Pakistan waa xanaaq marka aanada tuso marka wararkii ugu dambeeyay Pakistan waxay duqeysay bartamaha Kabul iyadoo la sheegayo in xabad joojin ay taagan tahay oo laga shaqeynayo ayaa duqeyntaasu ay timid haddaba xukuumadda Afghanistan ee islaamiga ah مسؤول أهل أيا الجزيرة وشيء مانتو أربعة إن وارر دينا عركة باكستان أي كوبر تلماميتستي قوري كويا لا برتمها كابول يدو وزارة دارمها دبدا باكستان أي مركا كهد ليسو إن لدونا يو إسفام إنو رحمرو باكستان يا حركة طالبان سيلو جوجيو قعنك هذلك هدبا وربحين دينا على صحافة ayaa waxay sheegaysaa in la maqlay qaraxyo ka dhacay galabnimadan arbacada ah bartamaha Kabul taasoo la sheegay inay sii kordhinayso xiisadda u dhaxaysa Pakistan iyo dalka ay dariska yihiin ee Afghanistan afayaan u hadlay xukuumadda islaamiga ee Afghanistan oo lagu magacaabo Dhabihullah Mujahid ayaa sheegay in baabuur booyada oo shidaal wada uu qarxay markii weerarka uu ku dhacay waxaana la sheegay in dab xoog leh uu qabsaday caasimadda Afghanistan iyadoo sidoo kale baabuurta gurmadka ay halkaa ku qulqulayaan si wixii meesha ka dhacay loo xalliyo marka sheekadu halkaas ay socotaa marka waxaa leeyahay dawlado labada dhinac saaxiibo la aha dadaal wada waxaa ka mid ah Qatar iyo Turkiga iyo ayaa ku kala dhex jiro oo xaaladda in la dejiyo ayay ka shaqeynayaan marka intaas marka waa laba dawladood oo darisa oo muslimiin ah oo marka nagta iska saaraya marka sheekadaasu sheeko fiican ma marka waa arki doonaa ilaahay ha qaboojiyaan leenahay idinkuna u duceeyo in maslaxad ilaahay uu kala dhex dhigo wixii cusub soo kordhana waan idin la socodsiin doonaa barnaamijkayga galabnimona waa naga intaas xabay like gareey oo share gareey inta aan mar kale kulmayno nabadgelyo